dawladda Soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay gaalka ayaa laga qabtay saddex habeen baa lagu hayay si fool xun oo ihaana ah la ila dhaqmay waa laga soo qaaday muqdisho la keenay waxa la ila dhaqmay si fool xun oo ihaana ah la ila dhaqday markii aan arkay iyadoo intii la gardo duubay oo indhaha laga xidhay anoo cagacad oo qaawan lagu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay aadna iga naxisay markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya in uu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma qaan bay dhabaynayd waa suuragal markii aan arkay intii la iga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markiiba diyaaradii lagu celiyay markii la igeeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joogta dhaanta markay ugu dul qabsadeen aflagaada markay iimiseen say caayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxa iga dhacday oo qalbigaygu isweydiiyay inaanan dad lahayn waxaan arkay oo nisiri arxan malihid waxa iga baaday arrintaasi waa murugo aad u xanuun kulul bahayd waxa iga baaday markii aan arkay oon ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fawshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo hiil iyo hoob ay la garab taagay arrintaas iga baaday waxaan iyadana rabaa inaan u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salka ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii daayo iguna martiqaaday xafiiskiisa waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed habka uu dhaqmay ee isbedelka ee uu soo daayay maxaabiistii ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro u xidhnaa runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu u muuqday qof cadaaladda iyo sinaanta u soo jeeda qof walbana doonaya xaq iyo waajibka uu leeyahay inuu mariyo iyadana asagana waxaan dhihi lahayn halka inuu ka sii wado